ahay qof weyn oo sanadii kontonaad sii aaday haddana maanta qalin jabiyay sababteeduna waxay tahay inaan dhalinyarada u sheego waqtigii ku habboonayd waxbarashadayda iyo qalin jabintayda waxaa dhacay dhib iyo burbur ku yimid dalkeenna mar dambe inaan ilaahay nagu soo celin baa ilaahay ka baryayaa idinkuna aamiin noo dhaha waa ku faraxsanahay arrintan maaragtay maanta halkan iyo xafladaan aanu imid waxaan leeyahay dhalinyaradan macallimiintu ay maaragtay wax soo bareen ay ku soo dadaaleen maanta ay qiimahan iyo sharafta soo gaarsiiyeen waxaa ka sii dambeeyay waalidiin hooyooyin u badan inta badan hooyooyinka ayaa koriya ilmaha hooyooyinka ayaanu maaragtay u dhabar adayga qaar baa laga yaabaa inaysan aabayaal lahayn qaarna waxaa laga yaabaa aabayaashood inay qayr mas'uul noqdeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahayga maanta halkaana soo gaarsiiyay waxaan idin leeyahay dhalinyaro anigu waxaa idinla bartay idigoo duqoobay waxaan idin leeyahay ha hanjabina waxay idin tusaysaa inaan anoo maanta intaan la idinla qadin jabiyo waqtigayga waxbarashadana uu iga qisaaray inaan waxbarashada laga hanjabin bay idin tusaysaa waxbarashadiina ha ka hanjabina kor u socda master gaara PhD gaara ma sha Allah ilaahay idin barkeeyo waa idin ducaynayaa hooyooyin aad baa u mahadsantihiin salaamaya macallimiinta nada sharafta badan oo qiimaha badan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh